xisbiga muxaafidka ee kulmiye ayaa maalintiisa saddexaad ku soo bandhigay cududiisa taageero magaalada Caynab ee xarunta gobolka Saraar waxaana shacabka ku dhaqan magaalada Caynab ee xarunta gobolka Saraar kala qayb galay wasiirada wasaaradda xanaanada xoolaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirashiid Riyaraac waxaana isugu soo biirtay fagaaraha khayriyada magaalada Caynab waxaana ugu horeynba goobtaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Saraar qaar ka mid ah garabada xisbiga kulmiye gobolka Saraar oqaal iyo waxgarad waxaana hadaladooda ka mid ahaa si wanaagsan ma aad iyo aad baa horta u mahadsantiin hadaatiin bulshaweynta aad iyo aad boqolkiiba boqol baan idin mahadnaqaynaa waa halkaas aynu kala sii dhowaanaa waxaan kale u sheegayaa waxaa inoo hadhay hawshii 14 casho 2 wiig baa inoo hadhay 2 wiig waa in qof waliba kaarkiisa aanu kaarku ka lumin maanta waynu guulaysanay guusheenii baynu muujinnay inaynu guusheenna cad tahay baa inoo muuqatay inaynu codkeennii maanta 30 kun cod meel wada marinnay baa inoo caddaatay 30 kun cod aynu hayno waxaanu heshiis kula gallay muuse biixa cabdi baynu heshiis kula gallay cid kale oo maanta aynu wax la gallay ma jirto anigu waxaanay deninkaa weeye 70 waxaan waxooga dhinnay waxaan horta waxaan u ducaynayaa dowladdeena waxaan ugu ducayay waxqabadkooda iyo dadaalkooda iyo dhiiridooda raacnaa xamar joogay oo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ahaa warsaaka Suldaan Cabdilaahi Suldaan Cali baynu beeraynaa warkiisii saaka madaxweyne Siilaan aynu beeraynaa warkiisii kuway ku faanayeen ku ballan qaadayeen inaga ahayn miyaan damirku shaqaynayn miyaynaan madaxdeenna iyo dadkeenna miyaynaan waxay gooyaan iyo waxay rag la galaan miyaanay gobonnimadu ku jirin innaga inoo gooyaan ku raacno ugu dambeyntii gudoomiyaha kaambeynka xisbiga kulmiye gobolka Saraar iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye iyo gudoomiyaha gobolka Saraar Nuur Qaasim Qadax ayaa ugu dambeyntii goobtaasi ka hadlay waxaana hadaladooda ka mid ah maxaan laabay musabbiix cabdi insha Allah waxaan ilaadaa uu ku soo bixiyaa waa madaxweyne imika musharax ka tag isaga laftiisa oo ka tagay musabbiix musharax ka tag aad iyo aad u mahadsantiin dadweynaha reer Wadamo sharafta badan haweenka iyo dhalinyaradu koow ka yihiin waxaan idin leeyahay wanoo hiiliseen haddaan nahay qoladeeda kaambeynka xisbiga kulmiyana waa u hiiliseen dalkana waa u hiiliseen aad iyo aad u mahadsantiin waxaan tilmaamayaa waa guul Wadamo u soo hoyatay waa guul qaranka u soo hoyatay waa guul xisbiga kulmiye u soo hoyatay banaanbaxii waa ku guulaysanay waxaynu u diyaar garoobaynaa inaynu isu abaabulno inaynu codayntii u diyaar garowno sidii la sheegay kaararkeennina diyaarsanno meelihii aynu ku codayn lahayn iyo arrimihiina abaabulkeedii aynu galno taana aad dadaalkeedii gashaan nabadgelyadana aynu ilaalinno haddaynu guulaysanay maaha macnaheedu waa seexanaynaa waa soo jeedaynaa guushu iyadaa ugu ilaalin badan iyadaa ugu maxaan ku yidhahday difaac badan codkii Wadamo maanta ku tirsamay waa tirsan yahay cod maqan oo maanta la doondoonayo ama laga kaambeyn garaynayo oo degmada Wadamo iyo xaqiiqdii ma jiro degmada Wadamo sanaaduuqday sugaysaa inay ku guraan waxaynu maadaama aynu codkii u diyaar garownay maadaama aynu kulmiye wada noqonnay waxaynu inagu ka ballamaynaa codku inaanu lumin inaan wax beerdaroobin inaan waxina dhaafin degmada Wadamo oog iyo ceel dhaabaya ayaa iyaguna si ballaaran u taageeray xisbiga kulmiye Cabdiraxmaan Faysal Famla telefishinka caalamiga ee Ariel TV magaalada Caynab ee xarunta gobolka Saraar